kuwaha mid aad u culus oo marka ka dambeysana deegaano hor leh ee ku sii fidayay faanada ayaana sheegatay gulo waaweyn inkastoo ra'iisul wasaaruhu sheegay inay aad u laayeen waxaan rabaa saaxiibkii goonina ka weydiiyay gooniw dhanka iyo bal Itoobiya kore maxay u dambeeyay shida horta muddooyinkii la soo dhaafay dagaalo kulul ay socday faano iyo dawladda Itoobiya ciidamada aad isku farsareen duqeymo marka lagu bilaabay markii la arkay jabhadda inay dagaalamayso awood yeelatay soo xoogaysatay sanad military la soo baxday waxaa lagu bilaabay marka xanuunjis waxaa laga xanuunjinayaa dadka shacabka in la duqeeyo hada laba maalin ka hor waxay dileen 200 oo qof oo shacab badan ay ku duqeeyeen magaalo Heleb la yiraahdo oo ka tirsan gobolka Amxaarada haddana waxaa la leeyahay Addis Ababa meel u dhow oo dad shacab iyo ciidamo ay joogeen oo 160 kilomitir u jirto dagaalkana ka socdo isla markaa duqeyna ka bilaawday marka hadda waxaa malaysaa beeqdartaas in loo isticmaalayo Amxaarada laakiin mood ay galeen Amxaarada waa niman adag markii la duqeeyo dadkii laga dhameeyay waana la dhameeyay xasuuqay waxba ma dhigin dagaalka sii wadaan marka ayaga waxa ka go'an waxay ku leeyahay anaga 40 milyan hadaan nahay 10 milyan hadaan naga dhamato 30 milyan xornimo ku noolaanaysa awoodii karti iyo maxaa inay gacanta ku hayaan dalka Itoobiya boqortooyada dib ugu noqdaan ayay ku fikirayaan marka in 200 laga dilo iyo 500 laga dilo Amxaarada ku fikiraysaba saas leeyahay marka haddana dagaalku oo socda dawladda Itoobiya ku warartay waxay dhaysay Eritrea weerarina waxaan weerarina Tigray qorshooyin kala wadana gataajirada wax diyaarnay waxa soo dhan waa laga soo kamaray waxa ka soo kamaray nimankan Amxaarada marka nimanka oo la ahaayna ayaga magaalada banaankeeda boobka wadaan oo dadka shacabka iyo wixii baawartii dhacayaan oo gaadiidka iyo kuba howlo kala soo socdo marka Itoobiya lagu sheegay lagu leeyahay waa amni ma jiro Soomaaliya dhaanta Itoobiya 100% Soomaaliya ama shabaab la dagaalaysa ama dhulkaada iska joogta Soomaaliya cid kale oo sida qabiilada kale ismaystaan mar dagaal ICC qaatay Soomaaliya isgalaan mogi dhibaato kale Soomaaliya kama jirto nimankan waxa wada dukum la iska dhigo heer diyaarado beeqdar la soo kiciyo la isku xasuuqa maraysa qabiil dhan la rabo diyaarada lagu xasuuqo xaalad xun waa dalka Itoobiya Abiy Ahmed intuu joogay dhibaato badan dhacday waqtiga Mareysan way dhacday dhibaato saan oo kale taa laakiin Mareysan wuxuu kaga fiicnaa Itoobiya isku hay awood isku hay ninkan awood isku hayna malahan kala tagtayna waxa way kala tageedina waxa 100% ma oo waxa way kala tageen Amxaarada dhulkeeda loo ma gali karo Tigray loo ma gali karo qolol buuxeed gadaal ka xiratay marka saas leeyahay qowmidaha kale ee dalka Itoobiyana mar dhow soo jeesan doona shido aw maadsan yahay gooni daawadayaal sidoo kale xoogaga TPLF ayaa hanjabaada isdaba jooga hadirayo inuu dirayo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya iyagoo ku eedeeyay inuu faragelin qaawan uu ku hayo gabi ahaanba xukuumadda TPLF ee maqala uu saldhigeedu yahay waxayna sheegeen saraakiisha ciidanka in la soo sameeyo telefooniyo xiriir oo lagu doonayo in lagu sabto Getachew Reer ayna ku eedeeyeen arrintaas inuu ka dambeeyo waxayna sheegeen haday dawladdu ay joojin weydo gabi ahaanba faragelintaasi inay qaadayaan tallaabo aan la mahdin doonin oo ku sheegeen in lagu difaacayo Tigrayga midnimadooda iyo wadajirkooda waa sida ay xoogaga TPLF ay sheegeen dawladda Itoobiya haddaan inta kaga gudubno Itoobiya balan tagna Muqdisho iyo caasimadda Soomaaliya iyo kulanka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud oo ka soo laabtay Uganda ayaa asagoo nasanin si toos ah wuxuu tagay xafiiska ra'iisul wasaaraha kulan waxay yeesheen albaabadu ay u xidhan yihiin oo warbaahinta inta badan laga qariyay waxayna ka wada hadleen baa la yiri sidii loo qaadi lahaa duulaan rawaal celisa oo dalka lagaga saarayo xogaga iyo sidoo kale duulaan iyo isku shaandhayn xoogan oo golaha wasiirada dhexdooda ah oo si degdeg ah u dhacda sidoo kale waxyaabaha laga wada hadlay waxa kamid ah sidii madaxda Jubbaland iyo Puntland xiriir loola sameyn lahaa maadaama Saciid Cabdullaahi Dani oo maalinimadii shalay sheegay inuu shirka dhacaya ka qayb galayo haddii shuruudaha uu wato la fuliyo inuu ka qayb gal inkastoo shuruudahaasi una soo dhaca u sii sheegin oo hal mid oo kamid ah uu sheego xagga dastuurka haddii waxyaabaha la wado wax laga bedelo oo ama dib looga noqdo waxyaabaha ay baarlamaanku ansixiyeen inuu shirkaasi tagi doono haddana madaxweynuhu ra'iisul wasaaraha wuxuu ka codsaday inay xukuumaddu ka shaqeyso sidii xiriir loola sameyn lahaa madaxdaasi bal gooni ma raba inaan weydiiyo gooni xasan waxa la yiri isagoo xiimi u yimid xataa murana salim baa madaxweynuhu xafiiska ra'iisul toos u siyaaday kulan bay yeesheen haddana xagga beelaha dagaalka qayb kamid ah ka qayb qaatay beesha midlooda kale uu galay baa la yiri hawshu say wax u socdaa horta shida xasan markuu tagay magaalada Kampala cadaadiska loo maleynayay lama saarin sababtoo waxay tahay waxa la rabay in dawladaha shirka waxa ka maqnaa ee dawladda ciidamo ka joogan sida Djibouti oo kale Kenya oo kale waxa kale ka maqnaa nimanka la yiraahdo Ethiopia way ka maqnaayeen nimankaas marka waa niman saaxiibtinimo kala dhaxayso meel ku ogaado waay haddii nimankaas xiriir xun oo kala dhaxeen lahaa shirka cadaadisa lagu saari lahaa kaliya waxa la yiri in maamul goboleedyada iyo dawladda la heshiisiyo Yoweri Museveni madax oo kamid yahay mas'uul looga dhigay in arrinta soo xaliyaan marka xasan maadaama cadaadis weyn oo na saarnayn haddana Uganda oo sii tagay muddo dhow oo shirkan ka hor u tagay Uganda
oona arrintan in lagala hadlayo ogaay Museveni kala sii hadlay waxaa u malaysaa in xasan cadaadiska faraha badnaa laga baqay inaan la saarin marka waxay muujinaysaa in Museveni loo dayn doono wada hadallada maamul goboleedyada dowladda inkastoo hadda xisad ay taagan tahay balad xaawo ciidamada dowladda iyo kuwa Jubbaland ay hadda isku qarka suariyay inay dagaalamaan oo hanjabaad la isku diray haddana xisadaasna way taagan tahay in haddana wada hadallo uu jiraa dowladda hadda Axmedow ma diidan inuu shirka qayb galo dowladda ma diidan asaga laakiin waxa dowladda diidan waxay leedahay ninkan ma aqoonsanin sababtoo qaabkii ay wax u rabeen uma socdaan midda kale kulamadan hadda uu qabanayo oo isugu yeeray ra'iisul waxa kamid ah isku shaandhaynta golaha wasiirada ayaa culays noqotay in waxa la sheegay in la doonayo ninka golaha wasiir gaashaaniga loo magacaabo inuu saneyn mid ku haboon oo ninka lagu bedelay wasiir TikTok madaxana furan nin lagu bedelay waxa meesha kuma xaga ciidanka xidhiir la lama marka hadda nin kale la doona in fiqa laga dhigo doono nin kale isku shaandhayn la wada oo kooban waliba aad u badnayn taas oo ra'iisul kala hadlay kadibna waxa la kulmay beesha mudulada wuxuu yiraahday niyo dagaalka wax ku fadhi waa idinka nimanka mursadaha meesha ku dhamaadeen aaday baa loo ogeedeen xawaal meesha ku dhamaadeen waa aragtay dagaalka ay galaan awoorey dhibaatada 7 bari dagaalamayeen marka wuxuu yiri wax dagaalka u fadhiya maxaa la yiraahdaa hor taagan waa idinka dagaalka ma galayna oo wuxuu yiri ilaa iyo meeshii la rabo qabanaysan ama suuxiro iska deynina shirkaas markii ilaa xal socday go'aanada ka soo baxana maanta soo bixi doona shidow waad mahadsantahay dhagay Soomaaliland iyo SSC xaaladoodu way cakiran tahay shalay dagaal baa dhacay hadda wali xiisadii way taagan tahay gurmadyo ciidan baa la arkay qabaal sii ordaya xagee wax maraya duleedka oga la isku farsaaray meel loo yaqaan dhoonyar iyo laan xabaal ayaa dagaal culus ka dhacay marka aagaasi waa aag muhiim ah oo maxalad reemi ah reegura xoolo dhaqato ah waliba geelay ah ayaa markaas lagu weeraray sida la sheegay ciidanka Soomaaliland weeraray xoolahaas iyo geelas in la dhacay isku day kadibna xabada meesha ka bilaawtay tuuladii ciidanka Soomaaliland soo galay oo markaasi gubay dab qabadsiiyay kadibna ciidamada isii qaatuma tagay dib ayay kaga saareen waxaana qabsadeen deegaanada lagu dagaalamay oo laan xabaar iyo dhowyar ciidamada isii dib u qabsaday markii hore Soomaaliland dagaal ku soo gashay marka halka waxa ka dhacay dagaal aad u qaran dhimashay dhaawac badan jiro tirkoob rasmi lama sameyn Soomaaliland dhankeeda waxay soo qorayeen ciidamada isii waxay naga dileen huwanta 10 ay naga dileen waa in markaas noo soo gurmada ay soo qorayeen Soomaaliland soo qorayeen Soomaaliland soo qorayeen ciidamada og joogo noo soo baxa noo soo gurmada 10 baa nagala dilay xaaladu waa ugu adagtay dhahayeen marka halka waxa ka dareemaysa dagaal weyn oo ka dhacay dhimashay dhaawac badan ay jirto xaalad halisan ay wali ka taagan maantadana aroornimada xataa dhaawac ciidana ka jiro meelaha qaar oo sanad military la gaarsiiyay waxa la arkay sanad military la kala qabsaday oo SSC waxay soo bandhigay gaari suu ah ay dhahayeen waan ka soo qabsanay maxaabiista dul saarneed marka xaalku waxa amalaysaa in mar kale hadana dagaalka uu dib u soo laabto maalmihiisa soo dhaafan oo sheegaynay inuu dagaalkan uu qarka loo saaran yahay dhaqay ciidan aad weyn ay jiraan dadku waxay ku leeyihiin waxba isku diraysaa laakiin waxba isku madirayno innagu waxaan ka haynaa xogta badan oo meesha dhaqaaqyada ka jiraan iyo diyaargarowga dagaal mar walba isha ku haynaa iyo dhegta ku haynaa taas marka keenayso in mar walba aan la socono meesha shalay iyo maanta waa sheegaynay in dagaal iyo xiisad dagaal ay halkaas ka jirto dagaalkana uu dhacay marka waxaan dhiraa dadka isha ku haya in barteena mar walba waxaan idin soo gudbi doonaa dagaalada meesha ay marayaan dhimashada iyo dhaawaca iyo waxa ay kala gaaraan ayaa halkan idin soo gudbi doonaa dhaawacan hadda waxa la sheegay in 20 gaarayo dhimashadan in 12 ay gaarayso marka wixii labada dhinacba sida waan soo gudbi doonaa wixii intaas dheer aad iyo aad buu mahadsan yahay gooni daawadayaal idinkuna waad mahadsantihiin barnaamij sii sheer garaya meel fogna gaadhsiya gebi ahaan barnaamijkeena inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa intaan barnaamijkan barnaamij lamid ah ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo